السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. inta aan muuqaalka iyo faahfaahinta aan idin hayo gudagalin marka hore si kooban aan u dhageysano war saacado lagu soo diyaariyay oo ka soo baxay gobolka Banaadir xalayna barkinta dheereystay dadka dhibka ku dhacayna aan la qaybsan sidoo kalena aan tagin degmooyinka xaaladaha ay ka taagnaayeen balse maanta rabay in dadka la iska jeediyo maadaama xaalado kala duwan roobkii xalay uu ka dhashay haddaba aan iswaafajino kadibna warka afayeenka ka soo baxay ee gobolka Banaadir dhacdada dhacday iyo xaaladaha murugsan ee ka taagan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho si kooban aan u dhageysano. roobkan ayaa geystay khasaare naf iyo mid hantiyeed inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday 7 qofood oo 2 ay dumar yihiin waxaa sidoo kale ku dumay ilaa iyo 9 guri oo ku kala yaala degmooyinka magaalada Muqdisho. ninkan aad maqasheen waa afayeenka gobolka Banaadir waa taqaanin waxa uu sheegay dhacdadii xalay ama musiibadii dhacday xalay ee roobka ka dhashay in canug yar iyo hooyadii ay ku geeriyoodeen waxa uu sheegay in dhaawacyo ay jiraan wuxuu xusay in guryo ay ku burbureen haddaba isweydiisay maamulka gobolka Banaadir xalay intee ayuu jiray markii dadka ay u baahnaayeen in loo gurmado maamulka gobolka xalay iska badaa kan ugu sareeyay gudoomiye degmo ayaa tagi waayay degmooyinka roobabka dadka ay ku qaadayeen caruur yar oo waalidiintooda canshuurtii laga qaaday xaq ay u lahaayeen wada aan lagu dhisan caafimaad aan lagu siinin loo gurman xalay oo indhaha laga daawanayay xitaa maamulka gobolka Banaadir kuwa ka tirsan guryahooda telefishin ku fiirsanayeen tufaax cambo iyo caanona ay isku dul saarnaayeen halka dad badan xalay u baahnaayeen in loo gurmadana ay ka gaabiyeen si haddaba dadka indhahooda la isaga daboolo dhagahoodana loogu shubo in maamulka gobolka uu shaqeeyay ayaa la soo saaray qoraal ka duwan wixii dhacay waxay aayeen wax xaq alle ka yimid oo dadka way ku qanacsan yihiin waxa musiibada ay ka dhalatay waa roob waa nimco xaq Ilaahay ka timid dib ayaa ka dhashay dadka ma diidano anagana kama hadleeno arintaasi ma naqdinayno laakiin waxa ka dhashay waxay ahayd in gurmad loo helo dadka la garab istaago xaaladda la qaybsado maadaama gobolka Banaadir shacabka ku dhaqan gobolka ay ka qaadaan lacago tiro badan oo canshuur ah oo hadba dhinac looga qaado xitaa fiiri marka guri dhisayso xitaa iska daayna guri dhistay jiingad aad garaacayso waxa arkaysaa qof askari ah oo daris labisan oo lacag ku weydiinayo marka maxaa loo waayay in dadkaasi loo gurmado haddaba tani waxay u baahan tahay isla xisaabtan dhab ah waxayna ku imaan kartaa shacabka oo isku duubni sameeya arintan ka dhiidhiya sheegana in lacagtooda u baahan yihiin cid lagula xisaabtamo oo gobolka ah una baahan yihiin wadooyin dhisan oo biyo mareeno leh si khatar kale aysan u dhicin haddaba warkan waa iga afeef oo maahan wax anaga aan sheegino laakiin waa wax xaqiiqo ah oo jira xalay in gobolka Banaadir mas'uul ka tirsan dadkaas uusan u gurman dhinaca kale marka warkaasi sheegna waxaan sheegaynaa cidda amaanta mudan oo dadkaasi u gurmatay taliyaha ciidanka booliiska xalay ma seexan ninka la yiraahdo Asad Diyaano oo Muqdisho xalay isaga iyo booliiska ayaa dhabarka u xirtay mas'uuliyad isa saaray dadkaasina u gurmanayay waana wax mudan in la yiraahdo waa mahadsantihiin maadaama kuwii dadka lacagta ka qaadayay canshuurayay ay barkinta ka dheereysteen saakayna ay soo saareen ama maanta ay soo saareen warqad degdeg ah oo lagu sheegayo in gobolka Banaadir xalay ilaa iyo maanta uu taagnaa dadka uu gurmanayay sidoo kalena uu ka qayb qaatay gurmasho dadkaasi haddaba meelo kale ayaa xaaladda ka jirtaa waana muhiim in qof kasta oo Soomaaliyeed uusan gobolkan ku halaynin dadkan shacabka ah ee uu dhabarka xirto kaalina ka qaato caawinta dadkaasi xalay musiibada ay gaartay oo walaalaheena ah inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Allah u boogadhayo waxaan rajaynaynaa in xaaladdan shacabkan ay ku jiraan mar un ay ka bixi doonaan